kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaal gaaban oo aanu ku dul istaagi doono dhacdooyinkii isdaba joogga ahaa ee qabsaday ninka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Idriiska Itaabo oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn caanka uga ah baraha bulshada. Idriiska Itaabo ayaa waxaa la sheegayaa in uu dhaawac halis ah uu ka soo gaaray mid ka mid ah ciidamada NISA gaari ay leeyihiin isaga oo markaasi ku safrayay gudaha magaalada Muqdisho oo saarnaa mooto loo yaqaano moto Falcon. Sidee wuxuu soo gaareen Idriiska Itaabo? Xaaladiisu waa sidee? Custaalkee lagu dabiibayaa? Maxayse tahay dhacdadan iyo dhacdooyinkii hore ee ka sii horeeyay xiriirka ka dhaxeeya dhacdooyinkan isdaba joogga ah ee maalmahan ku dhacayay saaxiibkeen Idriiska Itaabo. دعوة نوصل كلمة إن شاء الله. Idriiska Itaabo oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan baraha bulshada ayaa maalmahan wajahayay xaalad adag oo si weyn u soo jiidatay dareenka shacabka Soomaaliyeed. Idriiska oo caan ku ah muuqaalada lagu baahiyo baraha bulshada qaasatan YouTube-ka, TikTok-ga iyo aaladaha kale ee bulshada ee la isticmaalo ayaa si toos ah u soo gudbiyay oo bulshada ula wadaagay dhowaan muuqaal isaga iyo qoyskiisa oo laga barakicinayo mid ka mid ah xaafadaha ay deganaayeen ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale la burburinayay guryihii ay deganaayeen halkaasina uu ka rarayay agabkii iyo weliba guryihii laga burburiyay. Isagoo oo murugaysan ayuu wuxuu dadka ula wadaagay muuqaal uu kula wadaagayay xaaladda adag ee uu galay. Idriiska ayaa si qiiro leh uga hadlay dhibaatada soo gaartay isaga oo muuqaal ku baahiyay bartiisa TikTok-ga. Xaaladdaas ayaa muujinaysay xaaladda adag ee ninkani uu galay kadib markii hoygiisa la dumiyay. Muuqaalkaasi oo si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa waxaa ka falceliyay kumanaan qof oo Soomaali ah oo ku nool gudaha dalka iyo weliba dibaddiisa. Dad badan ayaa u muujiyay taageero iyo garab istaag iyagoo oo sheegay in dhibaatada soo gaartay Idriis ay la qaybsanayaan oo ay taabatay qulubtooda maadaama dhibaato xoog leh ay soo gaadhay ninkaasina uu yahay nin dhalinyaro ah oo aabba ah oo weliba ciyaal korsanaya. Shacabka Soomaaliyeed ayaa markaasi bilaabay olole xooggan oo loogu aruurinayo dhaqaale kaasi oo loogu talagalay in uu ka soo kabto xaaladii nololeed ee uu galay iyo weliba dhibaatadii soo gaadhay. Gurmadkaasi oo si degdeg ah u socday waxaa la sheegayaa in loogu aruuriyay lacag dhan 26,000 oo doolarka Mareykanka. Dadka u gurmaday ayaa waxa ay sheegayaan in ay noqotay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada arrintani, iyada oo dad badani ay ku tilmaameen mid muujinaysa isku duubnida iyo isgarab istaagga shacabka Soomaaliyeed marka ay timaado xaaladaha adag ee noocan oo kale ah. Balse dhacdo kale oo lama filaan ah ayaa mar kale ku dhacday Idriiska Itaabo kadib markii la sheegay in isaga oo ku safrayay mootada loo yaqaano nooca moto Falcon oo gudaha magaalada Muqdisho aad looga isticmaalo ay ku dhacday ama uu ku dhacay gaari ay leeyihiin ciidamada hay'adda NISA ee Soomaaliya. Shilkaasi ayaa si weyn looga hadalhayay isagana magaalada Muqdisho iyo weliba baraha bulshada ay ku xiriidho, iyadoo dad badani ay isweydiinayaan sida ay wax u dhaceen, waxa sababay shilkan iyo dhacdooyinkan isdaba joogga ah sida ay isugu soo beegmeen muddo kooban maadaama Idriiska maalmo un ka hor loo aruuriyay dhaqaale wax loogu qabanayay xaalkiisa markaasi uu wajahayay. Saaxiibkiis Kabtan Baaro oo ku booqday custaalka ayaa bulshada la wadaagay muuqaal uu ku baahiyay bartiisa YouTube-ka kaas oo kaga warramaya xaaladda caafimaad ee Idriis iyo weliba dhaawacyada soo gaaray iyo shilka sida uu dhacay. Kabtan Baaro ayaa sheegay in Idriis uu dhaawac ka soo gaaray madaxa halka lugtana mid ka mid ah ay jabtay. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay xaaladda goobta ka dhacday, sida loola dhaqmay ciidanka ay ula dhaqmeen iyo weliba hadda halka uu ku sugan yahay iyo xaaladiisu siday tahay. Muuqaalka uu ku baahiyay bartiisa YouTube-ka Kabtan Baaro ayaa sii kordhisay dareenka iyo hadalhaynta bulshada ee ku aadan xaaladda Idriiska Itaabo. Dad badan oo la socday arrintiisa ayaa hadda si weyn isu weydiinaya sababta ay isugu xigeen dhacdooyinkan culus laga bilaabo barakicintii, burburkii gurigiisa, lacagtii loo aruuriyay iyo weliba shilka uu galay wax yar uun kadib
markii warkani soo baxay ayaa dhammaan warbaahinta waxaa si weyn loogu qaadaa dhigay sida ay wax u soo gaareen. Qaar ka mid ah bulshada ayaa arrinta ku tilmaamay arrin nasiib xumo ah iyo in arrintani ay arrin siyaasadaysan tahay, halka kuwo kalena ay si weyn uga falceliyeen qaabka ay wax u dhaceen. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Idriiska Itaaba ayaa weli si weyn isha loogu hayaa, waxaana taageerayaashiisa iyo shacabka Soomaaliyeedba ay u rajeynayaan caafimaad degdeg oo sariic ah in Ilaahay siiyo iyo inuu ka soo kabto dhaawacyada soo gaaray. Dhinaca kale, codka iyo faahfaahinta uu bixiyay Kabtan Bara ayaa si weyn loogu baahiyay baraha bulshada, iyada oo dad badani ay sugayeen xogo dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda Idriis iyo sida weliba ay wax u soo gaareen. Haddaba aan idiin daaro codka Kabtan Bara iyo bal dhacdadii uu kala soo kulmay iyo hadda halka lagu dabiibayo ninkaasi dhalinyarada ah. Fadlan daawade, haddii aad halkan soo gaadhay muuqaalka noo like garee oo noo share garee si uu dad badan u gaaro. Aan idiin sii daayo codka Kabtan Bara. Waa mahadsantihiin daawadayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa xogtii koobnayd ee ku eegaynay Idriis iyo weliba xogihii ka soo kordhay xaaladiisa caafimaad oo lagu dabiibayo.